daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan uga hadlayno xaqiiqda furitaanka safaaradda Soomaaliya ee Washington DC. Safaaradda Soomaaliya waxaa dib loo furay 18 November 2015 kadib markii uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisii ay ku guuleysatay dib u soo celinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dawladaha Mareykanka iyo Soomaaliya iyadoo kulan fool ah ay yeesheen labada madaxweyne Xasan Sheekh iyo Barack Obama. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u magacaabay Danjire Axmed Ciise Caawad safiirka Soomaaliya ee Ameerika waxaana warqadaha safiirnimo ka gudoomay madaxweynaha Mareykanka Barack Hussein Obama. Waa maalin taariikhi ah waana lama ilaawaan waxqabadkii madaxweyne Xasan Sheekh. Waa maalinimo Arbaca ah 18 November 2015 waxaa dib loo furayaa safaaradda Soomaaliya ee Washington DC. goobta xafladda furitaanka waxaa ku sugan safiiro badan oo caalamka ka kala socda waxaa kaloo goobta ku sugan madaxda Soomaalida oo ugu horeeyay wasiirka arrimaha dibadda Mudane Cabdisalaam Hadliye safiirka Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Caawad Soomaalida ku nool Washington iyo marti kale waxaa khudbad heer sare ah jeedinaya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan Muqdisho isagoo online uga qayb galaya xafladda furitaanka safaaradda Soomaaliya ee Washington. Now brief remarks from our president Mr. Hassan Sheikh Mahmoud. Excellencies, ladies and gentlemen, the dignitaries, diplomats and Somali citizens who are gathered now in the premises of the new embassy of Somalia, I salute you. This is another historic moment to show the strong relationship between Somalia and the United States. This special event of reopening our embassy premises after more than 2 decades marks the commitment of the Somali government and its people to fully come back into the international stage and play its role in the international affairs. sidoo kale waxaa goobta ka hadlay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdisalaam Hadliye. waxay ka dhigan tahay waxa weeye waa u sheegaynaa adduunka iyo Mareykanka inaan ka soo baxnay godkii madoobaha ee ku jirnay inaan dad Soomaaliyeed nahay inaan diidnay inaan dhimanno in aan samaysano inaan haysano dawlad iyo dal qaniya in aan mataqaanaa ka mid nahay amuraha iyo dawladaha dadka kale aan la simanna. intaas kadib safiirka Soomaaliya ee Washington ayaa kelimadiisii qaatay waxa uuna u mahadceliyay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku amaanay diblomaasiyadda iyo doorka madaxweynaha ee xiriirka dib u soo celinta labada dal Ameerika iyo Soomaaliya. maanta Soomaalida waxay uga dhigan tahay guul waxay uga dhigan tahay horumar waxay uga dhigan tahay soo noqosho magaceedii iyo cinwaankeedii waxay uga dhigan tahay xiriirkii dadka Soomaaliyeed iyo dadka Mareykanka iyo dalka Soomaaliya dalka Mareykanka dawladda Soomaaliyeed iyo dawladda Mareykanka ka dhaxeeyay oo dib u soo xoogsaday Soomaalida Mareykanka joogta dib u furtay maanta waanigi tusaale idin ku sheegayay sidii kaalintay kala hayeen ka qaateen Soomaalidu inay suuragal noqoto safaaradda in dib loo haddaba shaki kuma jiro in dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku guuleysatay in dib u soo celiso safaarado badan oo ay Soomaaliya ku lahayd caalamka haddaba daawade la soco qaybta xigta ee xaqiiqada dib u furista safaaradaha Soomaaliya.